haddii aad ku cusub tahay janaalkeena Taqwa Tube subscribe saar dambalelka riix si aad u noqoto daawadaha koowaad mahadsanid jazaakallahu khayran ninbaa hadalkii khulaasadiisa wuxuu soo qoray gabar baan jeclaa gabadhii reerkoodii baan weydiistay gabadhuna uur bay lahayd reerkooduna uurka ma ogayn gabadhii waa la isiiyey waa aan guursaday uurkana anay ii lahayd marka maxaan sameeyaa hadda gabadhii waan isguursanay ilmay ii dhashay su-aashu laba jeer bay timid marra dumarka ka timid marra wiil bay ka timid marka waxaan u malaynaya isleeyihiin baan isiri labaduba waxay leeyihiin marka maxaan samaynaa hadda ilmaan isu dhallay waan isqabnaa waalidkiina ma oga wiilku wuxuu ku sii daray haddaan rabo inaan gabadha hadda mar kale mehersado ma mar kalean waalidkeedii iyo dadkii ka codsanayaa ma meher kale iiga baahan tahay iyo lacag cusub mise sheekha ii dhow baan keliya meher uun ka samaystaa hawshana waan iska sii wataa jazaakum allahu khayran السلام عليكم وردات حما السميسو وإلهي كوحي القريو لغم قيليو ومرك كواد قف عالمة ومسلمات كوكال صونتي وطق لفق وشيك تلاقيه وحول بيساكو سينيا إلهي نو طوبتك لكن بني آدم كو حما هاد سميسو انت هتقارن كرتا ولا قرية سام بان سمية قبل بان كوري الميدا شيء وحالك ما ورمو haddaad ka maarmi weydood sharci ahaan raadinaysa maxaa igu quman waxa quman intaad nin sheekha u tagto oo culimadii jooga meeshaad joogto culimaad joogta wadaadka kuu meherinayay wadaad buu ahaa soo wadaad ma ahayn yar intaad degta u saarto waxaad tidhaahdaa war waxaasaa jira sheekhe maxaa xala maxaa la samaynaya wixii uu kuu sheego sheekhu markaasi ku dhaqan wallahu aclam waxay dhahdaan qoraacaana oo braziliana Paulo Coelho bay yiraahdaan Paulo Coelho waa nimanka buugta ugu badan ee dunida la iibsada leh almost waxaan filayaa 150 million copies ka badan inay buugiskiisu gaadhayaan 150 milyan wax ka badan waa the second man bay yiraahdaan dunida ba saa wax u publish gareeya waa nin ahaan jiray waagii hore qoladan adabka wax tiriya heesaha iyo riwaayadaha iyo waxa sameeya markii dambana noqday qoraa novelladan iyo waxa la qoriyo waxa kan sameeya imikana United Nations ka buu malaawi yahay rajul salaamka dunida qisaskiisa waxa kamid ah qisa yar oo kooban shaka yar oo kooban buu qoray shakada kooban uu qoray wuxuu yiri oday baa jariidada akhrisanayay buu yiri dabeetana inaan yar oo dhalay ayaa mashquuliyay markuu sidaada rugba ku yarba su'aal weydiiyo mashquuliyo kan yar iska mashquuli buu isnaysiin marka intuu jariidadii rogay ayuu xaashimaabka dunida ku sawiray intuu soo jeexay ayuu googooyay markaasuu intuu u dhibay buu halka fadhiso dunidii dib isku rakib maabkii dunida samee wuxuu isla hadee ka yar dirtay kugu soo noqon maayo qisadu waxay sheegaysaa inaan 15 daqiiqaba gaadhaynin markuu ka yara maqnaa ayuu soo noqday isagoo wada bahashi markaasuu yidhi waa tan waan sameeyey odaygu su'aal buu weydiiyey war ma hooyadaabaa kuu dhigtay jugraafiga buu ku yidhi markaasuu yidhi may hooyo jugraafiga ma dhigto dasaad u samaysay buu yidhi waraaqdan aad ii dhiibtay buu yidhi xaggan maabku ka sawira xaggeeda kale qof baa ku sawiraa qofkii unbaa isku hagaajiyey buu yidhi gacanta iyo lugta iyo adinka iyo isugee dee dunidina way isku hagaagtay markaan qofki isku hagaajiyey dabeetana weedhii inanka yar bay ka dhigeen weedh xikmad ah waasaa maamahaan soomaalidu ku baxaan oo kale weedhaasaa waxay tahay cindamaa acadtu binaa alinsaan acadtu binaa alcaalam buu yidhi markii aan qofkii bini aadamka ha dhisay sawirkiisii ayaa adduunkiina ii dhismay waxay leeyihin ilmaha yari wuu iska yidhiye that's the real world noloshu waa taa qofka bini aadamka marka la dhiso ayay dunidu dhisantaa qofka bini aadamkii markuu dumana nolosha iyo duniduba way duntaa qofka bini aadamka caqiidadiisa mabaadi'diisa valueskiisa xorriyadiisa cadaaladii waxaasi markay dhismaanna adduunku wuu dhismaa bay yidhaahdaan markay dumaanna wuu dumaa walidaalika baa imika aqoon-yahanada waaweyn ee reer galbeedku aada u qaylinaya ay leeyihin xadaaradeenni way dumaysaa maaha cid ka xoog badana inay timi waxay leeyihiin trendkaynu hayno wajahadaynu u jeedno ayaa ah meelay wax ku dumayaan waddanna waaweyn oo dunida ka midaba waxay tilmaamaan
إن وح كلام هيسنة بني آدم بانو هيسنة مركا إنه بني آدم كمال قشني أيانو نولش الدنيا دم بدل اللي وضن كان يرى هذا جبان حلي يقفك بني آدم كانوا مال قشني دبتنا نولش إنه بدل ذلك سؤال واحد نقول كرتا وهدف كان نولش كلا يعني مركا محيي ما إنه النوع بنابا ما إن شهادة لقاطابا ما إن العقل هلابا ما إن مقعية ما مصل هلابا لايف بربوس كاقو محوية هدف كاد لاضي قول كاد نلاشا محاضو النوش إن المحي حقيقي الصو قفك بنادك وإنه هدف ليه ماله هو الصعودة والربا إنه قاعدو قفو النولي إنه وحونا مجلو نولا وحونا صوته وصوكع دبتنا اللي حدا سنة مركز قاعدة حباشي هلو قيو that's not a life nolol maaha taasi qiimo ma samaynayso waxaynu isweydiinaynaa markaa hadafkaynu nolosha ka leenahay waa maxay si markaynu ku guulaysanana aynu idhaahno hebel noloshiibuu ku guulaystay marka la waayana aynu idhaahno hebel noloshiibuu ku khasaaray ila waa labadaa mid un haddaad nolosha hadaf ka leeday meel aad u socota hadday jirto meeshii markaad gaadhana waxaan odhanaynaa waa guulaystay markaad gaadhi weydana waxaa la odhanayaa wuu guul daraystay muu guulaysan success ma gaadhin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay goorta la guulaystaa goortay tay wuxuu kaloo inoo sheegay nolosha tan iyo hadafka laga leeyay wuxuu yahay waxaa laynoo sheegay dadka inta guulaysatay iyo inta khasaartay qur-aanka intaasoo aayadood baa ka soo arooray oo ka warramaya alfaa'izuun intaasoo aayadood baa ka warramaya alkhaasiruun وانا معناها دبته ونولش ليه مركز لبضاسي كلا جرت ربي سبحانه وتعالى مركا نولش هي هدف كده هي وحورن هي جوش دبا مقياس بالوياله يعني نولش هدانو تشيرين ثرمومتر اما بارامتر اما وح لو قياسه هدانad haysanin يعني guriga dhererkiisa waa imisa waa inaynu haynaa waxaynu ku qiyaasno markaynu haysano miqyaas la saaro ayaynu isla garanaynaa dhererkiisu intuu yahay laakiin haddii nin waliba isha ku eego wax saxa soo bixi mayso marka wax la qiimeynayo wuxuu doonaba ha ahaadee waa inuu jiraa waxaad haysato oo barometers aad leedahay markaad kaatigarayso waxaas waa la qiyaasi karaya waa la gaari karaa inuu jiro rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kullu nafsin dhaa'iqatu lmowt وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور سورة آل عمران بقول سيدتني يشن بقول سيدتني اللي لبدا يدود يسكحي ربي وحليه سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت wax kasta oo nooli geeru dhadhaminaya muntaha alxayaati dunya weeyaan baa la leeyahay inta doonta joog way dhamaanaysaa wa innamaa tuwaffawna ujurakum waxa laydin wafeynaya laydin dhamaystiraya adduunka waa laga yaabaa wax yar yar oo min amalika inaad dhadhamiso sawaan kanat positive iyo negative kay doonaysa ha noqoto waxyaabihi aad shaqaysay wax ka mid ah haday qadhaadhaydna waa laga yaabaa nolosha wax ka mid ah inaad ka soo dhadhamisay haday macaanidna waa laga yaabaa nolosha wax ka mid ah inay soo dhadhamisay laakiin waxa la yidhi taas iyadu way dhamaanaysaa absolutely waa dhamaynaysaa laakiin waxa lagu dhamaystirayaa baa la yidhi camalkoo dhan wixii aad qabatoo dhan abaalmarkiisa waxaad wada helaysaa inamaa tuwafaw wafa baa lagu isticmaalay waxa laydin oofinaya laydin dhamaystiraya ujurakum yawma alqiyaama baa ilaahay yidhi maalinta qiyaame alxayaati lukhra xayaati lukhra aakhire markaynu gaadhno nin walba shahaadadiisa la siinaya qalin jabintaadii adduunka intaad joogtay imtixaan baad saxaysay papers baa lagu dhiibay waxa laaliya waxaad adduunka ku haysoo dhan sideku doona ha ahaado haddaad madax ahayd waraaqaad buuxinaysay
haddaad lacag haysatay waraaqaad buuxinaysay haddaad faqiir ahayd waraaqaad nolosha dhammaanteed imtixaan bay ahayd aad ku jirtay imtixaankaagaasi resultkiisii jawaabtiisii waxaad helaysaa baa lagu yidhi maalintaad qiyaamahaysa soo taagto ayaa lagu dhiibayaa jawaabtii imtixaanka saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu yidhi faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz ninka qudha guulaysta waa kanuu baan rabbi yidhi naar ninkii laga dhufto zuxzix ninka naarta haf laga soo siiya laga ilaaliyo laga dorkiyo oo wa udkhila aljanna janno la geeyo kaas baa ilaahay leeyahay faqad faaz miqyaas ulfaws markaa waa kan goormuu qofku guulaystay wuxuu guulaystay markuu naar ka badbaado ee janno galo ayaa rabbi tilmaamaya ama adduun